guddiga joogtada ah ee golaha xildhibaanada baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida ee gobolada Jarar iyo Doolo ayaa soo gabagabeeyay kormeerkeedii hawleed ay ku soo mariyeen degmooyinka gobolkan Doolo. xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida ee gobolada Doolo iyo Jarar ayaa xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wareer ku soo gabagabeeyay kormeerkii hawleed ay ku soo mariyeen guud ahaanba degmooyinka gobolkan Doolo uu ka kooban yahay kaasoo ugu kurgaleen ugu dambeyntii adeeg bixinta xarumaha bulshada sida dugsiyada kala duwan ee magaalada xanaanada xoolaha iyo sidoo kale xarunta dhaqan celinta booliska asluubta ee gobolka Doolo. gabagabadii xubnaha guddiga joogtada ah ayaa sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Wareer u soo jeediyay warbixintii degmooyinka gobolka ay ku soo arkeen sida dhinacyadii liitay dhinacyadii adkaa iyo talo bixinno kala duwan siiyay. xildhibaan Cabdixaafid Cali Cabdi oo ah guddiga joogtada ah ee golaha xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida SRTV ayaa kormeerkan hawleed ay ku soo gabagabeeyeen magaalada Wareer uga warbixiyay warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV. waxaan u soo baxnay kormeerkayga sanadlaha anagoo ka qoran tiimkii labada gobol ee Jarar iyo Doolo. hadda waxaan ku sugannahay xarunta gobolka Doolo. waxaan soo marnay waan xoog saarinay goobaha adeeg bixinta ee gobolada aan kor ku xusay. sidoo kale waxaan xoog saarinay maxay tahay sida maamuladu ay bulshada adeeg u siiyaan iyagana aan dabagal ku hayn. waxa kale oo aan iyadana xoog saarinay mashaariicaha heer deegaan iyo heer federaal iyo heer degmaba ka socda gobolka Doolo oo aan iminka joogno. mashaariicahan soo marnay waxa kamid ah socda wadada isku xidhaysa maxay tahay Qabradahar iyo gobolka Doolo oo run ahaantii muddo badan soo socotay laakiin imika maxay tahay shaqooyin ka socdeen. waxa kale oo kamid ah wadada u kala baxda isla degmada Wareer iyo sandarka Cagaar Weyne oo iyaduna maxay tahay jayga la dhigo socota. waxa kale oo iyaduna kamid ah wadada Buhoodle iyo maxay tahay Wareer u kala baxda oo iyaduna ay shaqadii ka socoto. sidoo kale waxaan soo marnay oo aan xoog saarinay goobaha caafimaadka. waxaan soo aragnay cusbitaalka gobolka ku yaala. run ahaantii cusbitaalkaas waa cusbitaal aad u weyn oo populationka ku xidhan ay aad u badan tahay. cusbitaalkaas shaqo wacan baa ka socotay, shaqaalihii iyo qalabkiisina u yaalay, laakiin waxaa jiray maxay tahay dhismayaal ciriir ku ahaa oo xagga hooyada iyo dhallaanka oo kale u baahan in loo ballaariyo. xafiiska caafimaadkuna maxay tahay uu qaaday in uu ku sameeyo daraasaad in cusbitaalka lagu sameeyo ballaarin oo u baahna si emergency in lagu waxeeyo. sidoo kale waxaa jirtay qaybta blood bank dhiiga oo uu leeyahay cusbitaalkan leeyahay isagoo shaqaysa isaga qudhiisa baahi baa ka jirtay haddii noqoto gaadiid la noqoto haddii noqoto qalabka kamid ah noqoto shaqaalihiisi iyo maxay tahay aad buu joogeen aadna wuu fiicnaa laakiin inta baahida isagu ka jirtay.